بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. walaalayaal, halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa ummadaha adduunka oo dhan baaqeennii koowaad, kaas oo aan ugu caddaynayno in annagu aan nahay jamaaco ka mida muslimiinta, jamaacadaasoo aada ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkayso ama ay ka maqlayso hareeraha adduunka, gaar ahaan caalamkan nagu hareeraysan oo loo yaqaano dunida muslimka. 40 sano oo ugu dambaysay laga soo bilaabo 1973 waxaanu ahayn kuwa u kuurgala si qoto dheerna u daraaseeya xaalka ay ku sugan tahay ummaddeennii. ummaddaas oo ahayd maalin maalmaha ka mid a mid ku nicmaysan ilaahay diintiisa, islaamkoodana ku dhaqangelisa noloshooda qaybaheeda kala duwan. maantana aan arkayna ummaddaasi caalamkana waa nala arkaahe in ay ku nooshahay xaalad aad looga naxo, iskhilaaf ayada dhexdeeda ah, akhlaaqdii oo ka burburtay, isdulmin, faqiirtinimo, dib u dhac dhinac kasta oo nolosheeda saameeya, iyo ayada oo iska raacaysa cadowgeedii oo ugu sii baaqaya inay ku sii socoto jidkii markii horeba ay ku hoogtay. 40 sano waxaa noo sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa ummaddaani caafimaadkeeda inuu ay ku jirto iyada oo u noqoto rabbigeedii, raallina ka noqota allaheeda abuuray samaawaadka iyo ardada, allahaas oo ah midka caalamkan dhan maamula, asagana awoodda keligii iska leh, sidaa darteedna xaq u leh inuu maamulo arrimaha khalqiga asaga uu abuurtay, xaqna u leh keligiis in ay ka dhigtaan midka u talinaya kuna xukumaya sharcigiisa toosan iyo qaanuunkiisa xigmada badan leh. taasina waa midda ilaahay rusushiisoo dhan oo ula soo diray bani aadamka si ay nebi kastaba ummaddiisa uu ugu yidhaahdo: ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh, war alla caabuda, ilaah kale ma lihidiine. aayad kalena ilaahay uu ku leeyahay: wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, jinni iyo insi wax kale uma abuurin inay i caabudaan maahe. haddaba cibaadadaasi macnaheeda waa maxay? cibaadada hal macno ayay leedahay, waana in si dhammaystiran liskugu dhiiba oo loo hogaansanaado rabbiga waaxidka ah. in ummadda ay allaha u hoggaansantayne waxa astaan u noqon kara in aysan kala kulmin wax kasta oo noloshooda ku saabsan ilaa allahaas xaggiisa maahe, oo aysan xalaalaysan wuxuu asiga u xalaalay maahe, aysanne xaaraamaynin wuxuu asiga ka xarimay maahe. arrintaasne waa arrinta ambiyadoo dhan ay ummadahooda ula yimaadeen si dadka ay ugu soo celiyaan alla cibaadadiisa, ayna ka soo saaraan cibaadada dadka hogaamiyeyaashooda ah oo hadba sharci inta u dejiya ku xukuma sharcigooda. dadkana sideedaba muslimiin ma noqon karaan in ilaahay baaqiisaas ay ajiibaan maahee oo ayna iska tuuraan wax kasta iyo mid kasta oo alla subxaanahu wa tacaalaa kula tartamaya xaqii uu u lahaa khalqiga uu abuurtay inuu asaga u taliyo.
الله سبحانه وتعالى كتاب كيس قرآن كوحو كليه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومد كستبا وحان أصادرني رسول كو أرانيا ور ألا عابدا كان فقاد طاغوتك طاغوت ومد كستا أودتك أي راعان أي أطيعان أسقو ألا حقي سنة أنفسحك هايسن طاغوت ومد كستا أو كردقن كشرعي إلهي إسكفوغينيا oo dadkana u dejinaya sharci asaga uu soo hindisay daaquud waa mid kasta oo dadka u xalaalaynaya wuxuu alla ka xarimay kana xarimaya wuxuu alla u xalaalay daaquud waa mid kasta oo alla kula loolamaya awooddii uu alla u lahaa inuu khalqigiisa asaga maamusha oo saa darteedana dadka u degsada dastuur iyo qawaaniin una kala xadida hidaha iyo dhaqanka iyo waxa ay ku dhaqmi lahaayeen una xalaalaynaya wax alla uu ka xarimay kana xarimaya wax alla uu u xalaalay dadkina ay saas ku raacaan waxyaalaha ugu yaabka badan leh oo maanta aan arkayno waxaa ka mid ah annaga uuna dhex yaallo qur'aankii kariimka ahaa oo wax kasta kala caddaynaya haddana in aan soo dooranno golayaal iyo hay-ada aana u xil saaranno inay noo dejiyaan dastuur ay iyaga soo hindiseen halkaana aan ugu tagno sharcigii ilaahay oo toosnaa intaa dabadeedna aan sheeganayna inaan muslimiin nahay walaalayaal waxaan idinla imaanay dacwo midaysan oo lagu soo koobi karo hal oraah oraahdaasoo ah wixii ambiyada ilaahayba ay ku oran jireen ummadahooda oo ahayd ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh war alla caabuda ilaah kale ma lihidiine haddaba aan iska tuurno baadilkan faraha badan leh oo aad dhex mushaaxaysaan nafteennana aan u dhiibno oo aan u hoggaaminno allaha waaxidka ah waxaan nagala doonayaa inaan noqonno muslimiin ka run sheega islaamnimadooda oo qowl iyo ficilba ay ka muuqata inay muslimiin yihiin oo alla isu dhiibeen arrintaane sida kale oo ay ku suuragelaysa waxa weeye in aan ka biri noqonno farahana aan kala baxno waxa maanta aan ku dhaqmayno oo aan u soo noqonno diintii xaqa ahayd diintii alle diintii nebiyaasha diintii nebi moxamed oo ambiyada lagu khatimay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaa nagala doonayaa ugu horrayntiba in aan si caddaaha ugu qaadno inaan alla addoon u nahay oo aan u hoggaansan nahay raallina aan ka nahay aanna aad u jecel nahay in isaga aan ka dambayno intaa wixii ka dambeeyane waa in aan kala kulannaa alla iyo rasuulkiisa wax kasta oo noloshayna khuseeya ama mujtamacayna ama ummaddayna ama caalamka oo dhanba khuseeya waxaa lagama maarmaan ah marka horeba inaan yaqiinsanno allah subxaanahu wa tacaalaa oo kamaaloo dhan iska leh wax xaq e maahee wax kale inuusan na faraynin wax khayr e maahee wax kale inuusan noo sheegaynin wax shar e maahee wax kale inuusan noo diidaynin saa darteeda waxaa nagala doonayaa annagane inaan allahaas nafteenna u dhiibno oo intaa wixii ka dambeeyana aan dhahno allow wixii aad naga rabto sida aad noogala jeceshahay ayaad nooga helaysaa allah subxaanahu wa tacaalaa wuu noo nadaamiyey nolosheennoo dhan shay kasta iyo arrin kastoo arrimaheenna khusaysana qaanuun u goonni ah ayuu u degsaday sidaa darteeda annagu xaq uma lihin inaan ka hor imaanno amaba aan ka doodno arrintaas xukunkoo dhan allah iska leh xukunkiisana wax ka hor imaan kara ma jira alla kitaabkiisa qur-aanka ah wuxuu ku yidhi
wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina. alle iyo rasuulkiisa hadday arrin xukumaan uma bannaana qof mu'min ah ama haween mu'minad ah inay ayaga noloshooda khiyaar u yeeshaan oo siday rabaan ay ka dhigaan. qofkii saa yeeli waaya oo alle iyo rasuulkiisa ku caasiya oo arrimihiisa asiga siduu u jecel yahay u socodsiisa waa faqad dalla dalaalan mubiinan, qof baadiyoobay baadinimo weliba cad oo aan shaki ku jirin. allah subxaanahu wa tacaalaa asaga oo ku dhaaranaya daatadiisa sarraysa qur'aankiisa wuxuu ku yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum ثuma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima. allah subxaanahu wa tacaala asoo daatadiisa ku dhaaranaya wuxuu leeyahay nebi muxamedow rabbigaadii baan ku dhaartee dadka iimaan laga heli mayo ilaa adiga ay kaaga xaakim dhigtaan wax kasta waxay isku khilaafaan oo adiga ay kuu soo celiyaan. markaa dabadeedna wixii aad ku xukunto haba yaraatee naftooda wax ciriiri ah ama kaxumaasha aysan ka dareemin, isla markaana ay raaciyaan inay u hoggaansamaan oy si dhaba u fuliyaan wixii aad ku kala xukuntay. allah subxaanahu wa tacaalaa maadaama asiga uu xukumka iska leeyahay wixii uu go-aamiyane waxa saxda ee ay tahay, kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku sugay xukumka ay qaadanayaan kuwa isku xukumi waaya kitaabkiisa uu soo dejiyey. allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun. kuwa aan ku xukumin ilaahay kitaabkiisa uu soo dejiyey waa gaalo. aayad kalena allah wuxuu ku leeyahay waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaa'ika hum aldaalimuun. qofkii aan isku xukumin wuxuu alla soo dejiyey waa daalim. aayadda saddexaadna allah wuxuu ku leeyahay waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaa'ika hum alfaasiquun. kuwa aan isku xukumin kitaabka ilaahay uu soo dejiyey waa faasiqiin. dhinaca kale allah wuxuu ku sheegay kuwa ka jeesanaya xukumka ilaahay iyo hirgelinta shareecada islaamka afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun. oo ma xukum jaahili bay doonayaan oo alla xukumkiisa yaa ka wanaagsan. taasi waxa fahmi kara qolada yaqiin diinta inay sax tahay u qaba ayaa arrintaa fahmi kara. walaalayaal, dacwadeenna waa taa wayna iska caddahay. waxaan idinku yeeraynaa alla in aad u caabudaan habka asiga uu u jecel yahay uuna raalli idinka noqonaya. waa in alla aada u gudbisaan addoonnimo kaamil ah, dad ay ka muuqata oo raalli ku ah allaha ka tala qaadashadiisa. haddii aad alle ugu raalli noqoteen in uu idiin noqdo rabbi aad ka dambaysaan, islaamkina aad ugu raalli noqoteen inuu idiin noqdo diin aad ku dhaqantaan, nebi muxamedne sala allahu calayhi wasalama aad ugu raalli noqotaan nebi iyo rasuul shariicadiisa lagu dhaqmo, markaas waxaad bilaawdeen tillaabadii ugu horreysay oo aad ugu badbaadi laheedeen hoogga adduunyo iyo kan aakharo. aadna ku heli laheedeen ballanqaadka alle oo ah liibaan adduunyo iyo liibaan aakharo. intaa haddii nagala helo waxa ka dambeeya isweydiin uma baahno, oo waxa weeye allaha inaan adeecno oo aan raacno sharcigiisa, aan xalaalaysanno wuxuu noo xalaaleeyey, aanna iska xarimno wuxuu naga xarimay, ilaa marka dambe aan ka gaarno
diintii ilaahay oo si dhammaystiran aan u dabaqno, sharcigii ilaahayna noloshaynoo dhan aan ku hagno, halkaana aan ugu tagno waxaan faraha badan leh oo magacyada kala duwan maanta leh oo aan raacayno oo aan alla xaggiisana fasax aan ugu haysanin, oo ay ugu horeyso dimuqraadiyada. macnaheeda uu yahay in loo hoggaansanaado xugum dad bani aadama uu degsaday, oo halkaane looga baxo xugumkii alle. shacbiga iyo dadweynaha ma aha kuwa xaq u leh hadba dastuurkii ama qawaaniintii ay rabaan inay degsadaan. awoodoo dhan alla ayaa iska leh. meesha qawaaniinta iyo sharciyadoo dhan laga soo wada qaadanaya waa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga, ee ma aha ummadda hadba ay rabta ama mudanayaasheeda ay u dooratay inay sharciyada u dejiyaan oo ayna siiyeen xaqa ah u dejinta sharciga iyo qawaaniinta. haddii aan samayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa aan raacno annagoo naga run tahay, alla dartiisana ula jeedno, alla wuu bedeli doonaa xaaladeenna maanta xun xaal fiican ayuuna ilaahay noogu bedeli doonaa, sida uu u bedelay xaaladdii carabta ay ku sugneed islaamka ka hor. waxay ahaayeen kuwa aan magac ku lahayn adduun weynaha, oo dabadhilif u ah boqorradii waagaa furus ama ruum. markay islaamkii qaateen waxay noqdeen taliyayaasha caalamka iyo hogaamiyeyaasha ku habboon inay adduunka dhan hogaamiyaan. caalamkii oo dhammaa waxay ka nadiifiyeen wax kastoo quruna, waxay u saramariyeen insaankii ay gaarsiiyeen heer uu insaanka gaari kara meesha ugu sarreysa. waxay u hogaamiyeen caalamkii oo dhan ilbaxnimo alla rumaysan oo wax kastoo bani aadamka u dan ana soo saaraysa. markay adduunkeeda camiranaysane alla ku rilogelinaysa. waxay adduunkii oo dhan ku camireen nuurka alle iyo cadaaladiisii iyo naxariistiisii. ugu dambayntii waxaan jecelnahay in aan idiin milicsiino laba arrimood oo muhiima oo si toos ana ugu xiran dacwada aan dadka ugu yeerayno. arrinta koowaad waxa weeye, annagu hadafkayna dhabta ah waa in aan dadka ugu yeerna diintii xaqa ahayd, caalamkoo dhanne aan si cad ugu muujinno diintii ilaahay oo saxda ahayd, taasoo ulajeedadeeda ay tahay annaga marka ugu horeyso inaan isku xaqiijinno alla dantii uu naga lahaa iyo addoonnimaduu noo abuurtay, oona ah inaan alla subxaanahu wa tacaalaa awoodoo dhan iyo taladoo dhan asiga aan u dhiibanno. dadkoo dhanna aan ka codsanno inay allahaas kaga raalli noqdaan, inay isu dhiibaan sharcigiisa u nadaaminaya nolosha qaybaheeda kala duwan. annagu dooni mayno in maaragtay aan annagu lafteenna noqonno kuwii wax xukumayey ama aan ka qayb qaadanno kuwa xukumka haysta inaan ka mid noqonno. taasi maba ahaba xisaabteenna marna kuma jirto. maxaa yeelay annagu waxaan ka baqaynaa inay acmaasheenna burto, oo waxaan baraalli ka nahay qof kasta oo kitaabka ilaahay nagu xukumaya iyo sunnada nebiga, haddii qofkaasi laga helo sifooyinka looga baahan yahay qofka muslimka ah oo xaakimka ah, qof diintii yaqaana, alla ka baqaya, caadil ah, ummaddana u naxariisanaya. haddii la helo, annagu waxaan baraalli ku nahay inaan u noqonno taageerayaal iyo ciidan. qofna yousan u malaynin markaan hadalkaa leenahay in ay wax kale noogu qarsoon yihiin. arrintaasaa ma aha. annaga sideennaba waxaanba ka baqaynaa acmaashayna u saafiyeeliddii alla aan u saafiyeelaynay inay wax kale naga soo dhex galaan, oo waxaan ka baqaynaa
adduunyo doon inaan noqonno. haddaan adduunyo doon nahay jidkan jid aan ahayn baan ku raadi lahayn. allaana yaqaan waxa quluubta ku jira. mas'alada labaad oo aan tii hore ka ahamiyad yareen waxa weeye annagu ma nihin dad argagixiso ah oo dagaal doona, bal diinteenna waxayna fartay dacwada marka ay bilowga tahay maraaxisheeda hore inaan gacmaha laabanno si loo arko dacwadeenna dhan mid alla khaalis u ah oo wax kale aan lagu doonaynin. midda labaadne si mujtamaca markaa ugu horeysaba dhexdiisa aysan dagaal sokeeya ka dhicin oo dad aan waxba galabsanin ay ku dhintaan. sidaa markaan leenahay ma aha inaan meesha ka saarayna jihaadkii islaamka oo ahaa ilaahay jidkiisa in lagu dagaalamo. waxa weeye amar kastaba wakti buu leeyahay, marxalad kastane xukumkeeda ayay leedahay. allana ma farin jihaadka ilaa markaan dowlad islaam helna maahe siduu rasuulkaba yeelay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. arrintaane alla doonidiisa iyo qadarintiisa ayaan u daynaynaa. alla asagaa waxaa adduunka dhacay oo dhan asaa qadara, asaga ayaana diyaar galay kara dhacdooyinkii ama wixii uu gogol xaari lahaa dowlad islaam in ay dhalato. allane amarkiisa ou samada iyo ardada ku maamulo wax ka hor istaagi kara ma jiraan. annagu sidaas ayaan idiin soo gaarsiinaynaa, waxaana alla ka rajaynaynaa in diintiisii aan idinku soo gaarsiinay siduu alla u doonayay. ma rabna annaga inaan hor dhacno alla iyo rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. waxaan doonaynaa in aan u hoggaansanaano oo aan isku xakamayno manhajkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi iyo tillaabooyinkii isdabajoogga ahaa uu qaaday markii uu islaamka hirgelinayay. sidaas ayaan doonaynaa in ay ummaddeenna nooga fahamta waxa aan ugu yeerayno. haddaba dacwadeenna waa taa, diinteennana waa taa. alla ayaana ku hanuuni kara dadka jidka toosan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.